السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمرك على السود وواضح آدي هذا ومهتسنتهين مقال كانوا حربا إن نذكول وذاقو خلافك سوكلا دحكالي دونالد ترامب ينينك وجودها جرسان أدونكا إيلون ماسك لبنان أو صاحبها يهاين إلا يحلقي أولا الله الدورشة مركي ترامب وقولستي كدب واتي لو ديبي Department of Government Efficiency ولا عجاها دولة أي قرش كرينيسو in ay beeqaamiso amaba ilaaliso loogu talagalay marka khilaafkan halkuu ka yimid hadda xaguu maraya ninkii Trump ahaa iyo Elon Musk oo la isku dayay in la dhaxdhaxaadiyo laakiin Trump uu ku gacan sayray walow gacan uu soo taagi ayaa la leeyahay ninkii Elon Musk ahaa barahooda bulshada ee Twitter-ka oo hadda X loo yaqaano Elon Musk uu leeyahay iyo sidoo kalena Truth Social oo Trump uu leeyahay ayaa hadalla ay shalay isku weydaarsadeen marka halka ay arintaasi marayso ayaan rabaa hadda inaan idin la wadaago khilaafkooda halkuu ka bilaabmay muxuu salka ku haya arimahaasi oo idil balse marka hore soo dhawaada Musk waa ninka ugu taajirsan adduunka iyo ninka ugu awooda badan adduunka oo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay bilihii la soo dhaafay amaba isdhahno sanadkii la soo dhaafay labada nin si aad ah ay isugu dhawaayeen saaxiibtinimadooda waxa la dhahay xitaa laba la kala fujin karo ma aysan ahayn laakiin waxa jirtay jimcahan maanta jimcihii ka horeeyay in Trump uu aqalka cad shir jaraa'id oo sagootina oo Elon Musk ugu sameeyay markii 130 maalmood oo Department of Government Efficiency uu hogaaminayay u dhamaatay waliba furad dahabi oo aqalka cad uu siiyay sidaasina lagu sagootiyay waliba la arkay xitaa ishiisa midig oo madow uu yiri wiilkayga ayaa ugu dhuftay laakiin hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan Stephen Miller oo ku xigeenka madaxa shaqaalaha aqalka cad ee Trump xaaskiisana ay la shaqayso ninkan Elon Musk inay isku dhaceen oo feer ku dhufto warsaas ayaa soo baxaya laakiin ilaa hadda war la hubo ma ahan marka waa la sagootay ninkii si wanaagsan ayaa loo sagootay laakiin markii aqalka cad uu ka baxay 3 maalmood kadib Trump ayuuba dagaal ku bilaabayba sharci waxaa jiro oo Trump ugu magac daray the big beautiful bill waa miisaaniyadda madaxweyne kasta markuu wadanka yimaado miisaaniyadda uu ku shaqeynayo sharci ay ku dhan yihiin ayuu Congress-ka u gudbiyaa marka Trump waxa ugu magac daray the big beautiful bill sharciga weyn ee quruxda badan ayuu ugu magac daray marka waxyaabaha ku jira waxa kamid ah Trump canshuur jaritaankii uu soo jeediyay xilligii uu madaxweynaha ahaa sanadkii 2017 in uu kordhiyo sidoo kalena inuu lacagaha ka jaro tamarta cagaaran Medicaid-ka iyo food stamp-ka dadka la siiyo kaararka caafimaadka waxa la ilaa 12 milyan oo qof ayaa kaarkooda caafimaadka lumin karo laakiin waxa sidoo kale jirta in sharcigan 2.4 trilyan deynta dawladda Mareykanka lagu leeyahay uu ku darayo 10 sano ee soo socota arintaasi oo Elon Musk uu ka soo horjeedo Elon Musk waxyaabo loo xil saaray waxa ahayd lacagaha dawladdu ay qarash gareynayso in la yareeyo laakiin sharcigan waxa ka muuqda lacagaha dawladda ay qarash gareynayso in ay aad u badan yihiin marka halka khilaafku uu ka dhashay waa halkaas waxa sidoo kale jirta in Trump uu joojiyay canshuur dhaafkii loo sameeyay dadka iibsada gawaarida electronic ah arintaasi oo Elon Musk maadaama shirkadda Tesla uu leeyahay gawaari electronic-na uu leeyahay waxa sidoo kale jirta in Trump markii uu aqalka cad ninkii Elon Musk uu ka tagay uu dib uga laabtay nin oo Elon Musk uu keensaday oo la filayay NASA inuu maamulo Trumpna waa uu joojiyay arintaasi oo nin kale ayuu booskiisii ku bedelay marka waxa sidoo kale jirta in uu Trump saaxiib la noqday dadka kuwa cadow la ah Elon Musk oo ah AI ragga iska leh uu kamid yahay ninka OpenAI iska leh John Altman iyo inuu saaxiib la noqdo uu yiri lacag fara badan ay Mareykanka ku maalgashanay marka waxyaabahaasi oo idil isbiirsaday ninkii Elon Musk marka sharcigan waa ka soo horjeestay waa kii maalin dhaweeto ay yiri xubnaha qalad ay sameeyeen aqalka wakiiladu markii ay ansixiyeen ceebahayd ku dhacdo waana ogaayeen arinta ay sameeyeen inay qalad tahay sidoo kale Elon Musk ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay maalnimadii Arbacada ahayd in shacabka Mareykanka oo bartiisa X uu ku soo qoray inay wacaan senataradooda iyo xubnahooda Congress-ka waxana uu u sheegay in ay diidaan sharcigan faqiir ka dhigaya Mareykanka oo ay sharcigan ugu maadaama hadda sanadka uu hor yaalo in sanadku sharcigaasi ay diidaan kill the bill ayuu soo qoray
marka Trump intaasi waa uu aamusnaa. Trump marka shalay ayaa aqalka cad waxa uu ku soo dhaweeyay chancellorka ama ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka ninka la yiraahdo Friedrich Merz. halkaas ayuu kula kulmay. marka aqalka cad ama Oval Office-ka maalmihii dambe waxa uu noqday meel madaxda lagu gaado oo lagu ceebeysto. waxaan ognayn madaxweynihii Ukraine arrintii ku qabsatay, kii South Africa arrintii ku qabsatay. marka nin ra'iisul wasaaraha Jarmalka uu soo diyaar garoobay waxa hore u soo qaaday shahaadada dhalashada awowihii madaxweyne Trump uu yiri magaciisa waxaa la dhihi jiray sidoo kale Frederick ayaa la dhihi jiray, waxaana uu ku dhashay meel u dhow magaalada la yiraahdo Brandenburg sanadkii 1869 waa 3894 sano ka hor. shahaadadii uu fariin soo geliyo dhalo soo geliyo u keenay waxa yiri shahaadadan waa shahaadadii awowga. marka Trump shahaada awowgiisa loo keenay, marka ma hadli karo. waxa yiri okay waa arrin fiican, meel wanaagsan ayaan dhigi doonaa. marka su'aalo ayaa la weydiiyey markii uu la kulmay kadib oo arrinta la xiriirtay Elon Musk. waa meeshaasi meesha Trump marka uu bilaabay shalay Elon Musk arrintiisa ama khilaafka isaga kala dhaxeeya inuu kala hadlo. waxa uu yiri aniga iyo Elon Musk xiriir aad u wanaagsan ayaan lahayn, laakiin hadda uma malaynayo xiriirkaasi inuu sii jiri doono. aad ayaana uga niyad jabsanahay Elon Musk ayuu yiri. waxa uu sidoo kale sheegay Elon Musk inuu ogaa sharcigan The Big Beautiful Bill ka hor intii uusan aqalka cad ka tagin, isla markaana arrintaasi dadka hadda meesha fadhiyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda ay kamid ahayn dadkan inta ay ka ogyihiin in ka badan ayuu sharcigan ka ogaa ayuu yiri, laakiin ma garan karo markii uu aqalka cad uu ka tagay kadib sababta uu sharcigan uu u cambaareynayo. marka Elon Muskna waa uu daawanayay hadalka madaxweynaha bartiisa Twitterka ama X-ka ayuu isla markiiba uga soo jawaabayay. waxa uu yiri arrintaasi waa been oo waxba kama jiraan, maxaa yeelay wuxuu yiri sharcigaasi weligii xitaa hal mar la iima tusin. waxa uu yiri sharcigaasi waxaa la baasiyay xilli habeen ah, waana run aqalka wakiiladu markii ay baasinayeen 9 saac habeenimo ayay ahayd. waxaana uu sheegay in xitaa xubnaha aqalka wakiilada ku jira qaarkood aysan fursad u helin inay aqriyaan. arrintaasina waa ay soo baxday oo Marjorie Taylor Greene ayaa kamid ah. waxay tiri hadda qodobo kamid ah ayaa haddii ay ku jiri lahaayeen ma aanan u codeeyeen. marka sidaasi ayuu marka ninkii Elon Musk inuu ku soo jawaabo wuxuu yiri sharcigaasi anigu ma aanan ka warqabin xilligii Trump aan la shaqeynay. Trump marka isaguna bartiisa Truth Social-ka ayuu la kala baxay oo qoraallo kala duwan uu ku soo qoray. waxyaabaha uu ku soo qoray waxaa kamid ah I don't mind waxba kama qabo yiri Elon Musk hadduu aniga iga soo horjeesto, laakiin waxa fiicneed bilo ka hor inuu iga soo horjeesto. waxa yiri hadda sharcigan aan soo diyaariyay waa sharcigii ugu muhiimsanaa ee la soo hordhigay ayuu yiri in Congress-ka weligii. waxaana sidoo kalena uu sheegay in lacagaha dowladda ay qarash gareynayso uu ka jarayo 1.6 trilyan. marka sharcigan waa sharci wanaagsan ayuu yiri. waxaana uu sheegay sidoo kale isagoo bartiisa Truth Social-ka daran qoraal kale ku soo qoray. waxa yiri in wadada ugu wanaagsan ee lacag aan ku save gareyn karno miisaaniyadda ama lagu badbaadin karo waxa ay tahay in billions of dollars oo lacag ah laga jaro kontraktiyada uu Elon Musk uu kula jiro dowladda ama kabka loo sameeyo. Elon Musk wasaaradda gaashaandhigga iyo meelo fara badan ayuu kontraktiyo badan uu ka haystaa. marka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kontraktiyadaasi la jaro si lacago fara badan dowladda loogu save gareeyo. waxaana uu sidoo kale sheegay in mar kastaba uu la yaabanaa sababta Biden uusan arrintaasi u sameynin. kontraktiyadaasi Biden muxuu u jari waayay ayuuba leeyahay ninkii Trump. oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri waxaan weydiistay ayuu yiri ninkan Elon Musk inuu iska baxo, isla markaana sidaa darteed waxaan meesha ka saaray in lacagihii canshuur dhaafta ah ee gawaarida elektrooniga taasoo ku qasbaysa ayuu yiri dadka iibsanaya gawaarida elektrooniga ah in ay lacagtaasi canshuur dhaafta ay helaan. marka waxa uu yiri qof kalena ma uusan rabin arrintaasi ayuu yiri. wuuna ogaa bilo ka hor ayuuna Elon Musk uu arrintaasi ogaa. marka sidaa darteed ayaa waxa uu noqday sidii qof waalan oo kale markii arrintaasi aan sharciga ku soo dari waay. hadda Elon Musk shalay oo kaliya waxa la leeyahay waxa uu lumiyay 14% qiimaha shirkadda Tesla. 27 bilyan ayaa shalay oo kaliya uu lumiyay kadib markii saamiyada suuqyada Tesla ay hoos u dhaceen. laakiin ninkii Elon Musk ahaa halkaasi ma uusan ku adkaysanin. Elon Musk isaguna waa uu soo jawaabay. marka waxa uu yiri hadda ayaan doonayaa in aan bamka ugu weyn aan soo tuuro. waxa uu sheegay Donald Trump waxa uu yiri waxa uu ku jiraa Epstein Files.
Epstein fileskaas waa idin sharaxaya marka wuxuu yiri taasina waxay tahay sababta dhabta ah ee aan loo soo bandhigaynin shacabka aan loogu soo bandhigaynin in Epstein files marka have a nice day maalin wanaagsan DJT waa Donald J Trump. Epstein waxaa la yiraahdaa ninkan Jeffrey Epstein sanadkii 2019 ayaa xabsi ku yaala New York uu isku dilay ayaa xitaa waxaa loo malaynayaa in la dilay maxaa yeelay ninkan waxa uu ahaa nin gabdhaha yaryar ka iibiya madaxda caalamka. Trump xitaa waxaa loo malaynayaa liiskaasi inuu ku jiro marka waxaa leeyahay dadkaasi in Israa'iil ayaa xogtooda hayso oo ceebeynaysa xitaa haddii la soo bandhigo. Trump xilligii ololaha doorashada uu ku jiray ayaa Fox waraysi ay la yeelatay waxaa la weydiiyey ma soo bandhigaysaa 9/11 fileskeedii ha ayuu yiri. Waxaa sidoo kale la weydiiyey JFK madaxweynihii hore dalkiisii fileskiisa ma soo bandhigaysaa ha labadaas waa ay soo bandhigeen. Trump markuu xil kala wareeg waa uu soo bandhigay. Waxaa kaloo la weydiiyey Epstein files ma soo bandhigaysaa markaas xogaa wuxuu yiri I would xogaa uu ka labalabeeyay haddana wuxuu yiri dad fara badan ayaa noloshoodu arrintaasi ay ku xiran tahay marka ilaa iyo hadda marka FBI-da iyo wasaaradda cadaaladdu waa ay soo bandhigi laayihiin Epstein fileskaasi marka waxa uu leeyahay ninka Elon Musk wuxuu yiri Trump ayaaba hawshaasi ku jira sidaas darteed ayaa loo soo bandhigi laayahay marka hawshu waa ay sii socotay marka wuxuu yiri ninka Elon Musk sidoo kale aniga la'aantay ninkan Trump doorashada waa uu lumin lahaa waxaan ognahay 288 milyan inuu ku qarash gareeyay ololihiisii doorashada Elon Musk inuu Trump siiyay marka waxa uu sheegay sidoo kalena waxa ay waan lahaayeen xubnaha Republicaanka hoggaanka ama aqlabiyadda aqalka hoose aqalka sanadkana Republicaanka waxa kaga guuleysan lahaa dimuqraadiyiinta 49 ay Republicaanku heli lahaayeen 51 dimuqraadiyiinta sida hadda aqalka sanadka iyo waliba aqalka wakiilada hadda Republicaanka ayaa hogaankooda haya ama aqlabiyadda arrintaas Elon Musk ayaa sidoo kale ka dambeeyay marka waxa uu sidoo kale ninka Elon Musk uu soo retweet gareeyay qof uu tweet ama X uu soo galiyay uu leeyahay Trump waa in la impeach gareeyaa oo JD Vance lagu bedelaa marka yes ayuu arrintaasi sidoo kalena uu soo yiri marka dagaalka labadan in Trump hadii uu qof la dagaalo waa uu la dagaalay hadii uu qof la heshiiyana waa la heshiiyay marka waxa la weydiiyay maanta wariye ka tirsan CNN ayaa saaka la xiriirtay Trump waxana ay weydiisay arrinta khilaafka waxa uu yiri anigu hadda kama fikiraya Elon Musk waxana uu sheegay in uusan doonayn in muddaha inuu la hadlo laakiin uu u rajaynayo inuu hadda wanaagsan yahay marka waxa uu leeyahay ninka Trump ma doonayo inaan la hadlo waxa la leeyahay Elon Musk hadda waa asagu wuu ogolaaday saxalay in uu la hadlo laakiin waxa isku dayayaan la taliyaasha Donald Trump in xaaladda la dajiyo labada ninna la wada hadashiyo oo telefoon lagu wada hadashiyo laakiin Trump waxa uu leeyahayba hadda ma doonayo in aan la hadlo ninkaas Elon Musk marka ninka Trump waa uu careysan yahay marka Elon Musk waxa uu sidoo kale yiri ma jirto wuxuu yiri taariikhda noloshan casriga ah ilbaxda ah ma jira wiligeed ma dhicin yiri sharci oo big ah oo weyn ama beautiful ah marka wuxuu yiri qof kastana arrintaasi waa og yahay sharcigu waa inuu noqdaa inuu noqdaa big and ugly waa inuu noqdaa mid weyn oo qaab daran oo fool xumaa ama waa inuu noqdaa slim and beautiful mid yar oo qurux badan waa inuu noqdaa labadaasi midkood mid kale ma noqon karo xitaa afayeenka aqalka wakiilada Mark Johnson wuxuu yiri waan wacay Elon Musk telefoonka waa iga qaban waayay xitaa waxa la sheegay Arbacadii in aqalka cad laga wacayay oo telefoonada isaga la xiriiriyay laakiin uu ka jawaabi waayay Trump sidoo kale taageerayaashiisa hadda waa ay ku kala qaybsameen ninkan Steve Bannon la yiraahdo oo Trump taageero waxa uu leeyahayba hadda waa in la baaraa Elon Musk sharcigu ku yimid Mareykanka oo sharci darro ayuu ku joogaa waxa uu leeyahay waa in la masaafuriyaa Trump waxa uu ku yiri waa inaad baaritaan ku sameysaa oo masaafurisaa SpaceX kana waa inaad la wareegtaa SpaceX kan waxa waaye shirkadda uu iska leeyahay ninkan Elon Musk dadka hawada sare space-ka stationka ku yaala ay arbixiyanada u qaadaa waxay u baahan yihiin isla markaana ka soo celisaa xitaa waxa uu ku hanjabay Elon Musk inuu arrintaasi joojin doono marka labadan nin xaalkoodu bariga dhexe ayuu marayaa sidoo kalena waxa jirta Trump in uu gaari Tesla uu iibsaday 2 bilood ka hor ninkan Elon Musk markii shirkadiisa lagu kacay oo dadka iibsan waayeen xitaa qaarkood la gubay gawaarida noocyada kala duwan ee Tesla aqalka cad uu keenay Trumpna mid gaduud ah uu ka iibsaday ama casaan gaarigii parking-ka aqalka cad ayuu yeelay hadda waxa leeyahay ninka Trump waxa uu doonayaa inuu gaarigaas qof iska siiyo ama sidoo kale uu iibiyo marka safaaradihi ayaa toos loo kala rartay maqli jirta wadan hebel iyo wadan hebel safaaradihi waa kala rarteen ninka Elon Musk iyo ninka Trump hadda safaaradihi waa kala rarteen xaaladuna halkaas ayay maraysaa walow la isku dayayo in hadda la dhaxdhaxaadiyo laakiin sida muuqata Trump waxa uu leeyahay ma doonayaba in xaaladana la dajiyo ayaa la doonaya laakiin Trump wuxuu yiri ma doonayo in la hadlo in muddo waxa uu sheegay in xaalku uu sidaasi si ahaan doono marka way arki doonaa waxyaabaha kale
ka soo baxa laakiin xiisada Trump iyo Elon Musk u dhaxaysa halkaas ayay maraysaa waxaana ay u muuqataa in mar dhow aysan labada dhinacba aysan heshiin doonin wixii kale ay ka soo kordho waa idila soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo